haddii ay timaha kaa daadan jireen kaa siimi jireen kuu bixi waayeen kaana jajabmi jireen intaasoo dhan waa xalkooda iyo daawadooda timahaada waxay noqonayaan xariir dheeraado dhabarka dhaafo dhulkana gaaro waxaan idin leeyahay insha Allah saliidan haddii uu kaliibkan ku soo gaaro sida aan anigu u sameeyso 3 days 3 biri gudaheedna waxa arkaysaa natiijada iyo faa'iidada ay leedahay timaha ayay bixisaa dheereysaa jajabka ka ilaalisaa nafaqa siisaa yani wayna jilcisaa timaha ayay isla sintaa waxaan idin leeyahay insha Allah waa sirta timaha oo la isku dhaafay oo maanta la fashilay lidii soo bandhigay hadda dhagihiina isiyo iyo amaahiyo dhageysta insha Allah bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatu dhammaan waa islaam inta ku xiran channel KARIN waxa idin leedahay insha Allah hadii aad ku cusub tahay channel KARIN subscribe dheh beelkana on ka dhig insha Allah baqaylna ha noqon videoyaasha u sii share garay asxaabtaada qaybta timaha ayaa maanta ka hadlayna insha Allah waa 3 days challenge gabadhii 3 biri timaheeda mariso faa'iido dagdag ayay ku arkaysaa sida u jeedaan waxaan haystaa oo laba shay ayaa hortiina ka muuqata labadaas oo ah olive oil iyo waxa kale oo haystaa zikuni waxa way zikuni iyo olive oil labadaas waa mucjizada timaha haddii uu kaliibkan ku soo gaaro timaha ka bidi jireen ka siimi jireen ku bixi waayeen ka adkaan uga maaran wixii hore ayaan ku dhihi lahay adiga gacantaada ku sameeyso kuna dabiib timahaada ilaaji timahaada ayaa lahaa timahaada ayaa ku ilaajinaysa insha Allah kadibna natiijada waxa arkaysaa 3 biri gudaheed madaxaada ayaad marsanaysaa saliid ahaan ayaa uga dhigaysaa ma dhaqaysid alaabtan sida loo isticmaalana insha Allah waa idin la wadaaga bilaaw ilaa dhamaad gabdhaha mar walba soo weydiinaa maxaa la suubinaa seeleela dhamaysta please videoga zikuniga ayaan soo qaaday waan kala jaray half ayaan ka isticmaalayaa hadii asliid badan ku isticmaalaysidna halka xabo waa wada isticmaali kartaa halfkii zikuniga aha ayaa marka soo qaadanaya kadibna waan hoolayaa kan kaaroodka lagu hoolo ama hadii kale midiyo kale ta ku jarjari kartaa si yar ina u jarjartid waa muhiimada oo kaliya si yar ina u jarti kadibna waan hoolayaa markii aan hoolo kadib ayaan waxaadna markii inaan saliid ku habaysano wuxuuna mari doonaa insha Allah siyaabo kala duwan oo aan u sameeysan doono insha Allah marka maxaan leeyahay hadii ay tahay fadlan markii ugu horeysa aad soo booqatid channel KARIN subscribe de please videoga sida aad u fiirsatiin uma saartiin like-ta hadii aad fiirstid like-ta iska saar maxaa ahaantood like-ta waa suulka kor u jeedo zikuniga sidaas ayaan u soo jartay ama aan u soo hoolay qafiifka ah ee yar yar hadaa midi haystidoo kale intare ayadana waa ku jarjaran kartaa kadib maxaan soo qaadanayaa weel baaquli ayaan soo qaadanayaa kadibna zikunigi aan hoolay ayaan ku shubanayaa markii aan zikuniga aan hoolay dhamaantiis waxaan soo keenayaa baaquligo markii aan soo keenay kadib asagana markaas kadib ayaan waxa u isticmaali doonaa inaan saliid ku darsado walina faanoole fari kama qodna waxyaabo kale ayaa u dhiman oo loo isticmaali doono ama uu mari doono markii aan saliida iyo isku darsano zikuniga kadib waxaan soo qaadanaa olive oilka maasha Allah ida timaha aad ay uga qayb qaadata bixitaanka dad badan ayaa dhaha agoolayna gelisaa agoolay leedahay agoolka timaha waxay ku xiran tahay dhaqitaanku hadaan tinta qaybta hoose ee madaxa si fiican looga dhameeynin markii aad dhaqaysidoo kale saliidii wixii aad marstay laazim waayo agoola ka imaanay agool saliid gooniyo keenta malahan agoolka dhaqitaankii ku xiran tahay marka waxaan ku isticmaalay saliid ayaan ku daray 5 macalgo oo olive oil ah ayaan ku darsaday markii aan ku darsaday kadibna oo saliidii iyo zikuniga aan isku daray sidaan ay isku soo noqotay kadibna sidaan kuma dhaafeenay ee waxaan rabnaa insha Allah dabka ayaan soo saarnaa insha Allah sida aan u saarnay waa ay arki doontaan soo baxa soo raaca hadana waxa imaanay jikadii digsi ayaan biyo ku shubay dabka ayaan saaray biyihii ayaan waxaan ku dhaxriday baaquliga ayaan u geliyay aan dhaxgeliyay markii aan baaquli gelin waxaan rabaa kuleelkiisa inuu ku baxo oo kadibna oo maasha Allah si tartiib ah nafaqadiisa iyo dhacaankiisa iyo fitamiinadkiisa dhan oo inoogu baxo kadibna dabkii waan ka soo dajiyay markii aan dab ka soo dajiyay oo hoos ayaan biyo ka dhigay markii aan hoos biyo ka dhigna saliid sidaas iyo ku soo baxday waxa isku baxay dhacaankii zikunigi oo kale ayaa ku baxay maasha Allah sidaas iyo ku soo baxday hadda u jeedid zikuniga asigana sidoo kale dhacaankii dhan wuu ka baxay wuxuu noqday zikuni qafiif ah marka maxaa la rabaa inuu sidaas kuugu soo baxo
10 daqiiqo ayaa waxa ku karinaysaa dabka biyo ayaa hoos ka marinaysaa weelkii aa ku shubatay zikuuniga iyo saliid oo kaleetana kor ayaa ka saaraysaa 10 daqiiqo la rabaa marka inuu ku baxo daboolna ha saar hadaa dabool saartid saliidda waxa ka galay biyo sidiis ayaa ku dhaafaysaa dab dheer ayuuna saaraysaa hoos fiican ugu karkara ayaa la rabaa saliiddan ee si fiican iyadoo u karkarto ee qiicdo alaabta marka waxay ka saacideynaysaa madaxa waxay ka saacideynaysaa waa ku masaaj gareynaysaa waa saliid caadi oo isticmaalaysid ay noqonaysaa oo aadan iska dhaqeenin madaxaada ku masaaj gareynaysaa waa ku shanlaysanaysaa maasha Allah saliiddan waxay leedahay fitamiino far badan madax xanuunka iyo roontahay timaha ayay bixishaa siibashada timaha jajabka aflaaqada timaha bixi waaye waxaasoo dhan ayay ka qayb qaadanaysaa dadka adduunka timahooda dheer ay arkaysaan Chinese-ka iyo Carabta iyo waxyaalahaas madaxooda waxay mariyaan waxyaalaha dabiiciga ee nafaqada laakiin anaga madaxeena maxaa marnaa saliid iyo jilciso iyo yacni wax oo dhib u keenayo saliid laga buuxiyo oo nafaqo leh saliid cadeey iyo waxyaalahaas oo kale wax ay tarayaan male yacni markii geedaha kale waxyaalaha saliidaha looga bixiyay xitaa saliid cadeeyda xitaa ka isticmaal nafaqada iyo kale oo kan ugu darso qof waxa arkay saliid cadeey madaxa mariyo kadib wuxuu ku dhahaa madaxi ma bixin intuu ka baxa madax oo saliid cadeey la mari marka maxaa idilaahay insha Allah markii sidaas oo kale isugu soo qaboobo weel yar oo nuucu doon ku ahaado mid dheer mid gaaban adu waxa laga rabaa muhiimada wax isku daboolmaayo kale ayaa ku soo shubanaysa kadibna waa isku 3 biri intii kuugu filan amal ayaa isticmaalaysa markaas oo kale 3 biri ilaa 4 biri ayaad samaysanaysaa meelaha dhiganaysa 3 biri 4 biri ayaa saliidaas isticmaalaysa madaxaada ku masaaj gareynaysa waa iska shanlaysanaysa 3 biri gudahood madaxaada waxa arkaysa isbedel dagdag ah sidee waliba gabdhihii hore waa aragtay gabdho badan inay kasoo mahad celinayaan dhahayaan tima jilcisahan dhibtay jilcisada timaha maasha Allah waa uga maaranay waan ka faa'iidnay adigana ka faa'iid insha Allah salaxyaha bidaarta timaha bixi waay wax walba oo problem ah oo timaha ku saabsan way ka qayb qaadanaysaa timaha inay siibtaan oo kale inay jajabaan oo kale inay bixi waayaan oo kale aflaaqada timaha inay isdhax galaan oo kale ay isku adkaadaan ee shanlada marka shanlada gelisidoo kale ay isceliyaan waxay uga qayb qaadanaysaa inay timaha ay yacni jilciso furfurto nafaqooyin fara badan oo helo 3 biri gudaheed ayaadna arkaysaa natiijada fadlan waxaa idin leeyahay tahay markii ugu horeysay soo booqatay channelka qurxin subscribe beelkan on ka dhig insha Allah una sii share garay asxaabtaada maxaan idin leeyahay insha Allah sidan hadda anigu u samaysto waxba ka bixinin sidaas ula dhaxdhigo 3 biri 4 biri intaas isticmaal kadibna natiijada adiga arki doona biidnillaahi alkariim iyo faa'iidada madax xanuunka timaha bixi wax walba oo problem ah oo timaha ku saabsan ay aad uga qayb qaadanaysaa maasha Allah waxaan idin leeyahay baqayl ha noqon u sii share garay gabadha walaasha ah wiilka walaalka oo bidaarta la gabdhaha timaha u bixi waayeen gabdhaha timaha ka siibteen gabdhaha timaha ay ka adag yihiin gabdhaha mar walba ku wareeray jilcisada isku wareeriyo kaleento yacni waxaan idinka tagay islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi